dadweynaha Mandera waxaan leenahay horta cudurka AIDS lagama qaado sex kaliya laakiin taas waxay tahay sexiga la sameeyo waxay tahay jidkii ugu weyn oo jiraan lagu qaado way waxa dhici karta cunug oo hooyadiisa ay daawo qaadanin inuu jiradan ito uu ku dhash bishii aan soo dhaafnay October waxaan loo sheegay magaaladan dhexdeeda wiil 16 sano jira oo Nairobi ka yimaaday oo og inuu asaga HIV qab ilma ayuu la ciyaarayay hadiyo jeer buu xusili jumeesh wata iyo cirbad mara la markuu ilmaha la ciyaaro cirbadu isku diro ilmaha ku dira waa sidii loo soo sheegay idaaradda caafimaadka loo soo sheegay taasi waxay tusinaysaa qof oo maaragtay raba inuu umadu ku faafiyo haddii aan ka hadlo wixii Mheshimiwa Faisal uu ka hadlay promiscuity anaha ilmaha gabdhaha iyo wiilasha fasaad badan ayaa magaaladan ka taagan jiido qaar waxaad arkaysaa ka daran Koinange habeenkii hadii la gaar Koinange street oo Nairobi oo maaragtay islaamaha dhilooyinka ay ku shaqeystaan wada baa jirta oo magaaladan dhexdeeda marba cishada haday gaarto hadii wadada ayada aad martid lagama yaabo inaad waysid wiil iyo gabar isaasta marka waxaan leenahay khatarta iska ilaaliya daawooyinka maaragtay drugs la isticmaala ee maaragtay maskaxda wiilasha bedela kuwaasna iyadan dib kale oo nagu soo beertay waxay meel walba ka yimaadaan dhalinyaro badan baa isticmaasha daawooyinka khatar ay maaragtay keenaysa waxa kale oo khatar keenaysa dadka badan oo maaragtay ka yimaada kala meel ka yimaado meelaha ka shaqeynayeen postadan ilaa iyo maaragtay huduma center galabtii hadii la gaara waa ogtiin dadkii meesha ku nool waxaan leeyahay balse galabta maghribka bacdi any person from Mandera qofkii Mandera ka yimaad aaba noqota hooyo noqota بعد المغرب from posta to huduma saada hada ishii maaragtay wax soo arkuwayn marka waxaan leenahay ha maaragtay hal isu daga holiday baa la jooga wiilasha iyo gabdhaheena khatarta hal iska ilaaliya jirada zero aan ka dhigno waa taan ii sheegaya sanadkii la soo dhaafay 52 qof oo cusuban oo jiro hore qabin ayaan ku aragnay sanad walbana way jiri doontaa hadii maaragtay xaaladda anaga aan iska ilaalin dadkii jirada qaban waxaan leenahay dhawaanaan daawo ayaa la isticmaalaa yaan laga dhigin umada maaragtay jiradan heshay because jirisi walba lagu heli karaa waad ku dhalan kartaa waxaanan si aadan ogeyn ay kugu soo dhaci kartaa si aad ogtaan way kugu soo dhaci kartaa marka dadka maaragtay jirada qaba fadlan ayagana hal i'tiraafa yaan la dhigin kan jiradan uu qabaa yaan la reexin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.